السلام عليكم دمان ولا نوgu xiran magacaygu waa Cabdicasiis Amjad maanta waxaan ku hayaa mowduuc aad muhiim u ah kaasoo in badan oo asxaabta ku xiran channelkan ay naga codsadeen sidee loo sameeyaa xayeysiin YouTube oo guuleysata YouTube waa meesha labaad ee wax laga raadiyo ama wax lagu search gareeyo markii laga soo tago Google search-ga YouTube waxaa isticmaala in ka badan 2 bilyan bishii kuwaasoo si joogta ah u daawado boqolkiiba 70 ka mid ah daawadayaashaas waxay ka soo galaan moobilka sidaa darteed waxaan dareemi karnaa muhiimadda weyn oo leeyahay in aad ganacsigaaga aad u samayso YouTube ads ama haddii aad tahay xirfadle aad barato sida loo sameeyo YouTube ads ama si guud aad u taqaano xayeysiinta loo yaqaano Google ads nasiib darro weli xayeysiimaha YouTube-ka kama soo muuqdaan Soomaaliya laakiin haddii aad ganacsi banaanka ku leedahay oo wadan Soomaaliya ka baxsan muhiim ayuu ku yahay inaad taqaano sida loo sameeyo YouTube ads ama haddii aad tahay xirfadle ku jiro digital marketing-ka muhiim ayay ku tahay in aad ganacsiyada Soomaalida kuwaasoo ku yaalo wadamada ka baxsan Soomaaliya aad u sameyn kartid YouTube ads aad ayayna baahi badan ugu qabaan waxaad arkaysaa ganacsi kaasoo ku bixinayo lacag aad u fara badan si uu uga soo muuqdo hal channel laakiin ma ogo ganacsigaas wuxuu awood u leeyahay asigoo lacag ka yar lacagta uu siinayo qofka bixinayo inuu ka soo muuqdo dhammaan channelada uu doortay ama dhammaan YouTube-ka meelaha uu asiga u ka doortay fiidiyogan ayaa kugu tusi doonaa sida loo sameeyo xayeysiinta YouTube oo guuleysata bilow ilaa dhamaad iyo waxyaabaha lagaaga baahan yahay marka ila joog ilaa dhamaadka si aad u ogaato sirta xayeysiinta YouTube inta aan screen-ka idinla wadaagin maxaa lagaaga baahan yahay si aad u sameyso YouTube ads waxaa lagaaga baahan yahay inaad leedahay Google Ad account kaasoo ah meesha laga sameeyo xayeysiinta YouTube-ka waxaan ka soo sameynay muuqaal bilow ilaa dhamaad sida loo sameeyo Google Ads ama Google Ad account ama Google Ad Manager qaybta description-ka ayaana soo gelin doonaa haddii aadan aqoonin sida loo sameeyo Google Ad account muuqaalkaas soo daawo kadibna ku soo laabo muuqaalkan waxaa lagaaga baahan yahay in aad leedahay ama in ganacsiga aad xayeysiinta u sameynaysid oo leeyahay ama aad adiga u sameyso YouTube channel kadib YouTube channelkaas inaad muuqaalo soo gelisid muuqaaladaas oo aad ugu tala gashay kuwa aad xayeysiinta ku sameyn doontid waxaad soo gelin kartaa YouTube shorts ama muuqaalo dhaadheer ama muuqaalo gaagaaban oo qaybta YouTube-ka ama fiidiyoga caadiga aad soo gelinaysid labadaas haddii aad soo diyaarisay waxaa lagaaga baahan yahay in haddii aad u baahan tahay placement ama qayb gaar ah in muuqaalada ay kasoo muuqdaan inaad soo diyaariso channelada ay kasoo muuqan doonaan tusaale waxaad u baahan tahay channelo Soomaali oo cayiman like Ogaansho Hoso Baro iyo channelo lamida inay kasoo muuqato xayeysiintaada ama ganacsigaaga ama qofka ayaa kaa codsaday in uu kasoo muuqdo xayeysiintiisa channelo gaar ah waa in channeladaas listigooda oo link ah ama magacooda saxda ah aad soo diyaarisaa saddexdaas marka aan soo diyaarino waxaan u diyaarsanahay inaan sameyno YouTube ads waxaan toos u galaynaa marka ama aan sameynaynaa YouTube ads anagoo real example soo qaadan doono dhameysa muuqaalka oo subscribe saar channelka halkan waxaan iskula wadaagnaa cashiro la xiriira digital marketing-ka haddii aan guda galno cashirkeena sida loo sameeyo YouTube ads marka aan joogno YouTube weliba aanan joogin Soomaaliya oo wadamo kale oo YouTube ads ay kasoo muuqanaysa aan joogno waxaan arki karnaa qaabab kala duwan inay xayeysiimaha usoo muuqdaan tusaale sometimes inaad qaybta hore xayeysiin aad ka aragto ama muuqaal markaa ku dhufano inay xayeysiin noo soo baxdo xayeysiintaas waxaan hadda arkayno waa xayeysiin qaabkaasoo kale inay halkaa xayeysiin inooga soo baxdo ama inaan ka aragno qeybahan oo kale in aan xayeysiinta ay kasoo muuqato dhammaan waa qaab kala duwan
ama shay hadaa qorno search inay xayeysiinta usoo muuqato tusaale aan dhahno best tusaale real estate. Okay, tusaale real estate oo kala kasoo dhahno in Kenya kala lacala dhahno tusaale macna searchigaas oo kale inay noo soo muuqdo waa qaabka aan ka baran doono xayeysiinta. waa hadda this one wuxuu sameynaa xayeysiin marka muuqaalkiina waa daawan karnaa waxaan booqan karnaa website-ka this real estate kan koowaad hadda meesha soo galay. soo marka anaga waxaan rabnaa waxa waaye inaad sameyn kartid xayeysiin YouTube oo dhameystiran haddii ay noqoto in as feed ama as search inay ka soo muuqato ama as stream ama muuqaalka gudihiisa inside video inay ka soo muuqato qaabkaas kala duwan. soo marka hordhac yar ka sameeynaa intaanan xayeysiinta toos aanan u sameynin. hordhac yar aan iska sameeynaa waxa maanta waxaan baranaynaa sidee xayeysiin YouTube oo guuleysata loo sameeyaa. tababar kooban ayaan ka sameyn doonaa. waxaana muuqaalkan hal qayb ayaan tusaale ka soo qaadan doonaa. qeybaha kaleetana muuqaalada kale ayaan ku baran doonaa. muxuu ganacsi u dooranayaa xayeysiinta YouTube? waxyaabahan ayaa keenayo in la doorto YouTube Ads. kow in 2 bilyan iyo ka badan ay isticmaalaan bishii. in ay daawadaan dad ka badan dadka daawada TV-yada oo maanta meesha koowaad oo ay dadka daawadaan ay tahay YouTube. iyo inuu ku haboon yahay wacyigelin iibin iyo xayeysiin target leh maadaama dad waaweyn muuqaalada ay daawanayaan in uu ku haboon yahay in la sameeyo impression ama awareness, consideration, conversion dhammaan in waxyaabahaas uu ku haboon yahay. iyo costi aad aqbali kartid ama miisaaniyad ahaan aad awoodid maadaama xayeysiintu aysan aad qaali u ahaynin sidaa darteedna ayaa loo dooran karaa. okay, maxay ku guuleysan kartaa xayeysiinta aad ka sameynaysid YouTube? 4 tilaab ayaan isleenahay in ay tahay waxyaabaha ay ku guuleysan karto. kow in aad leedahay goal macnaha in xayeysiintaas ay leedahay ujeeddo cad ama goalka xayeysiinta inay caddahay. tusaale haddii aad rabto ogeysiis in aad sameyso maaragtay in goalkaaga uu cad yahay. haddii aad rabto in aad sameyso conversion ama haddii aad rabto in aad brand building aad sameyso hadba in ujeedada ay caddahay waa tilaabta koowaad ee ku guuleysan karta xayeysiintaada. target audience sax ah macnaha tusaale waxbaad xayeysiinaysaa waxaa xayeysiinaysaa kasoo qaba skin care shirkad kamid ah shirkadaha skin care-ka Africa ayaa kamid tahay. soo marka target audience-gaaga inuu yahay clear in aad tusaale aad rabto gabdhaha da'dooda u dhaxayso 20 ilaa 35 jirka ama janalada skin care-ka looga hadlo in aad doorato. tusaale dadka qof walba janalada ku xiran waxaad qiimeyn kartaa janalka YouTube-ka oo Soomaalida ay leedahay ama janalo kale hadduu yahayba dadka ku xiran audience-giisa in aad odorosi kartid ama aad analyze gareyn kartid waa muhiim. tilaabta labaad ee xayeysiinta ku guuleysan karto waxa waaye target audience sax ah. 3 in muuqaalka aad xayeysiinta saaraysid inuu yahay muuqaal soo jiidasho leh macnaha inaad sameyso muuqaal kaasoo 6 ilbiriqsi ama 6 second ee ugu horeyso ay tahay inay qofka qaban karto macnaha inuu qofka isla markaa ku xanaaqeynin ama uu aad u xiiseenayo. soo marka muuqaalkana waa saameynta saddexaad ee ku guuleysan karto xayeysiintaada YouTube-ka. iyo in aad mar walba ku sameyso measurement ama inaad natiijada xayeysiintaas aad cabirtid misana aad sameysid inaad hagaajisid ama optimizing macnaha measuring and optimizing in aad xayeysiintii aad daba gasho maxay ii keentay dadka ay keentay inaad kala ogaato haddii ay qaldan tahay ama xoogaa haddii ay weyn tahay oo kale inaad ku sameyso inaad soo yareyso ama inaad optimization aad ku sameyso. 4 tilaab waxaan isleenahay waa tilaabooyin ay ku guuleysan karto xayeysiintaada. waa halka ugu muhiimsan ee tahay inaad wax badan ka fahantid. tusaalooyin badanna waa ka soo qaadan doonaa. ciwaankan waxa waaye waa campaign subtypes ama noocyada campaign-ka aad sameynaysid noocyada ama si kale noocyada video-ga aad xayeysiinta ku sameynaysid qaababkay u soo muuqan doonaan. mar walba update ay ku sameysaa xilligan aan muuqaalka duubeyno hadhowna marka aan tagno Google Ad account-geena waad ka arki doontaa noocyadan ayaa kamid ah campaign-nada ama ololayaasha aan qaababka aan xayeysiinta u sameyn karno.
kow mid loo yaqaano skippable in stream ads. waxaa kaloo jira wax la dhahayo nooc kale non skippable ads, xayeysiin aanan skipless ka dhigi karin, ay tahay qasab inuu qofka dhammaysto. ka waa in muuqaalka noocaas ah xayeysiinta ku sameynaysid uu yahay 15 second iyo wixii ka yar, macnaha ma ka badan kartid 15 second. soo marka waa xayeysiin aanan la iska bedeli karin, uu qasab ay tahay inay dhamaato, in qofka uu dhammaysto. xayeysiintaas marka waxay kasoo dhex muuqan doontaa muuqaalada dadka ay daawanayaan. nooca saddexaad ee YouTube aad xayeysiin u samayn kartid waxaa loo yaqaanaa in feed video ads. waxay kasoo muuqanaysaa search ama meesha oo home page-ka, tusaale marka home-kaaga aad joogto waxyaabaha soo muuqanaya waxaa loo yaqaanaa waa in feed. soo marka marmar qaarna in feed-kan faa'iido uu ku lahaan karaa, marmar qaarna khasaaro uu ku noqon karaa, because of qofka markuu YouTube ka imaado muuqaalo gooni oo u baahnaa ay u daawanayaan. soo marka waxaa laga yaabaa si walba u xayeysiintaada oo u arko qaybta kore ama qaybta search-ga inay ku adkaato. marka aad sameynayso this ad waa in targetka aad leedahay ama waxa aad xayeysiinaysid wax ku habboon inuu qofka ina imaado YouTube-ka oo ku qoro tusaale best AI software, mana wax muhiim u ah inay tahay. soo marka noocaana waa nooc aad samayn kartid xayeysiinta marka aad joogto YouTube ads. okay, waxaa kaloo jiro bumper ads, iyadana waa nooc awareness ah 6 second oo kale ay socon doontaa, waana stream ahaan usoo muuqanaysaa. kan shanaad waa midka ugu lisdhihi karaa ugu muhiimsan ama professionalka ah ama more advanced ah marka aad sameynaysid YouTube ads. waxaa loo yaqaanaa ad sequence, taxane video ah. kan haddii sharaxaad yar aan ka bixino, ad sequence marka aad dooranayso waxaa waaye xayeysiin ayaad diyaarinaysaa. waxaad soo diyaarinaysaa 3 muuqaal. muuqaal koowaad oo wacyigelin guud ah, muuqaal labaad oo xiise gelin ah ama qofka shaygaas oo aad ku xiise gelinaysid, iyo muuqaal saddexaad oo conversion ama qofka inuu wax iibsado aad qaab soo diyaarinaysid. soo marka ad sequence waxaad sameynaysaa, waxaa leedahay muuqaalka koowaad aad qofka tusaysid ha noqdo muuqaalkaas oo wacyigelinta ah. haddii qofka marka muuqaalka wacyigelinta uu daawado ku xiji ama marka labaad oo muuqaal kala daawanayo ama isla muuqaalkaas gudihiisa muuqaal labaad oo aad ugu talagashay qofka inaad xiise ku abuurtid soo geli. haddii uu sii daawado qofka muuqaalka labaad wuxuu u gudbaa stepka saddexaad oo ah in waxyaabo oo macnaha sales oo ku gadan karo ama call to action inuu website-ka aado ayaad sii diyaarinaysaa. soo marka kan waxa waa funnel marka xayeysiinta joogno waxaa sameynaa funnel koodi qofka waxyaabo wacyigelin u arkaa ama waxyaabo oo awareness ah, then interest, then conversion ayaa sidaa ka dhacaa. soo marka kanne muuqaal gooni ayaa waxaan kasoo sameyn doonaa sida loo sameeyo ad sequence in YouTube ads. okay, hadda marka waxaan wax ka sameynay inta aanan toos u gudagelin xayeysiinteena hordhac yar oo ku saabsan YouTube ads. okay, waxaad soo diyaarsatay Google Ad account-gaaga, dhammaan payment-igi iyo waxyaabihii loo baahnaa. haddii aad conversion u baahan tahay Google Tag Manager, Google Analytics, waxyaabahaas dhan waa u diyaarisay. halkan ayaa imaanay, hadda waxaan isla sameynaynaa YouTube ads. marka waxaan leenahay create ama new campaign ayaa leenahay, ama create-kaas meesha arabna aan ka dhahno. okay, new campaign markaa dhahno, okay, new campaign markaa dhahno qaabka inagu soo baxaa sales ayaa dooran karnaa, lead, website traffic, app promotion, awareness and consideration, local store visitors. waxyaabaha dhan mid kamid ah haddaad doorano annagoo YouTube xayeysiin inaan saarna aan rabno, waxaa sii yaraanayo campaign waxa loo yaqaan hadday sharxayay subtype campaign-ka. soo marka anaga waxaa leenahay create campaign without guidance, si aan anaga xur ugu noqon wax walbo. okay, halka marka imaano hadda maanta waxaan sharxoonaa waxa loo yaqaano video ads, search, performance max, demand gen. waxyaabahaas hore ayaan marar badan usoo sharxnay. waxaan ka sameyn doonaa dhammaan koorso update ah oo bilow ilaa dhammaad aad ku baran kartid Google Ads. mar dhow ayaana soo gelin doonaa social media-yaasha Amjad Digital nagu xirnaa. okay, halka markaa ku dhufano oo video ad ah waxaan dooranay video. halkan marka qayb hoos ayaa kasoo baxaysa oo loo yaqaano campaign subtype oo hadaya aan sharaxaad guud ka soo bixinin. soo marka haddii aad rabto video views
waxaad dooranaysaa micnaha awareness waaye awareness ayaa dooranaysaa soo marka video views waxay ka mid tahay nooca aan dooran kartid waxaa dooran kartaa non skippable reach ama macnaha efficient reach hadba waxay ku xiran tahay nooca aad dooranayso marka video views waa qaybta koowaad waxaad dooran kartaa drive conversionka marka waxa waaye waa sales qaybta hadda marka sales aad rabto waxaan dooran karnaa ad sequence waxyaabaha dhan marka waxa waaye waa targetyaal aad dooran karto kanoo kale haddaad doorano iyadana waxa waa midda day sharxinay oo ah in stream ama non skippable stream waxyaabahaas dhan ayaa waxaa kasoo muuqanayaan 3 video ayaad sii dooran kartaa soo marka hadda anaga waxaan iska dooranaynaa video views ayaan dooranaynaa maadaama aan rabno xayeysiin ahaan tusaale in aan usoo qaadano marka hadda automatic kaasoo noo dooran yahay haddii aad doorato conversion waxaa u baahan tahay inaad conversion tracking iyo waxyaabahaas aad soo gelisid iyo website-kii iyo wixii aad u baahneed okay continue ayaa dhahnay halkan ayaa ina keena kow oo ah general settingka magaca ayaa u baxsanaynaa video viewskaas tusaale aan ka dhahno test 1 oo kale okay marka hadda ad formatka midka aad rabta ayaad ka dooranaysaa kow meeshan waa muhiimada koowaad in aad waxa aad rabta aad doorato marka hadda meeshan waxaa ka arkaysaa waxa la dhahayaa ad format ama nooca aad rabto ee xayeysiinta ay soo muuqato saddexdaas option ay haysataa markii aad dooratay ma ahin mar walba marka aan dooranay video views marka aan dooranay soo marka saddexdan option waa skippable infeed iyo short soo marka annaga waxaan dooranaynaa kaliya midkan ayaa tig saaraynaa qaybta labaad waxa waaye halkan waxba kama bedeli karno bid strategiga maadaama aan dooranay video views waxba kama bedeli karno lacala haddii aad qayb kale dooran laheeday waxyaabo kale ayaa kasoo baxaayo haddii noqoto maximize conversion ama qaabab kala duwan oo bid strategy ah laakiin hadda anaga video views ayaa dooranay soo marka customer views ayay noqon doontaa budget ahaan waxaan dhahaynaa total daily ayaa ka dhigaynaa waxa aad rabta ayaa ka dhigi kartaa like $10 oo kale $10 ka dhigana kasoo qabo start iyo end hadba waa ka dhigi kartaa waxaa dhigi kartaa hal bil ha socoto isbuuc ha socoto ama kaliya endiga waxaan dhahaynaa nan haddaa dhahdo xayeysiintaas ilaa adi aad ka xirtid ayay soconaysaa haddii kalena 1 month ayaad ugu talageli kartaa xayeysiintaada anaga maadaama for example ay tahay xayeysiinta waan kasii soconaynaa okay hadda waxaan maraynaa marka qaybta labaad oo ah network hadda marka networkan hadda waxay dooran tahay meesha ka soo muuqanaysa xayeysiinteena waa YouTube Google TV ma ka soo muuqan doonto soo marka waxaa aad u fiican muhiim waa halkan marka aad joogno marka aad joogno networkiska Google partner video partner on a Google display network inaad ka qaado ayaa fiican waayo xayeysiintaada waxaa la geynayaa applicationada iyo meelo aan ahayn YouTube soo marka si budgetkaaga u soo koobmo oo aad targetka aad rabto ama meesha aad rabto kaliya loo gaarsiiyo waxaa qurux badan inaad kaliya YouTube ka dhigto okay locationka hadba xayeysiinta meesha aad rabto ayaad gelin doontaa like hadba anaga hadda tusaale locationkaas oo kale muuqaalo badan ayaa hore u soo sharaxnay locationka aad rabta ayaa halkan gelinaysaa anaga hadda waxaan location ahaan u isticmaalaynaa for example London Minnesota Nairobi Oslo Sweden Soomaaliya adiga dadka meelahaas joogo okay haddii aan sii socno halkaa audience halkan markaa joogno saddexdaanba waa u samayn karnaa marka waxaan rabnaa dadkii khaaska ah oo xayeysiinteena arkaayo inaan doorano keyword ahaan waa u gelin karnaa haddii macnaha infeed ahayd xayeysiinteena okay topic waa sii dooran kartaa marka aniga kaliya hadda waxaan ka qaadanaynaa xayeysiinteena waxaan rabnaa tusaale waxaa soo qaadanay shirkadda loo yaqaana Afnan Homes Ltd oo guryaha dhisto ayaa waxaa usoo qaadanaynaa for example muuqaaladeeda YouTube-keeda waa kana muuqaaladeeda mid kamid ah ayaa tusaale kasoo qaadan rabnaa okay marka waxaan sameynaynaa placement ayaan qaadan rabnaa for example marka ad placement markaa dhahdo waxaa waaye waa meesha ugu muhiimsan oo ah meesha uu kasoo muuqanaysa xayeysiintaada ad placement marka waxaa dooranaysaa YouTube channelada ay kasoo muuqanayso YouTube-ka meesha ay kasoo muuqanayso channelada ayaa qurux badan tusaale marka YouTube channeladaas ay halkaas kasoo muuqanayso linkiyadooda ama magacyadooda ayaad soo qaadan kartaa marka hadda tusaale aan soo qaadano
ilaa dhowr iyo ilaa 5 YouTube oo Soomaali ay leedahay oo aan rabno in xayeysiinteena la soo dhexgeliyo muuqaaladooda ayaan soo qaadanaynaa. Okay, hadda marka waxaan soo qaadanay ilaa 4 YouTube channel oo aan halkan soo gelinay anagoo linkiyadooda soo qaadanayna. Halkan ayaa waxaa ku baastagareyn kartaa magaca YouTube channelkaas ama linkigiisa. haddii si qaasa video oo rabtana videoga ayaa linkigiisa ku baastagareynaysaa. So marka inta aad rabto 10 20 30 YouTube channel oo active ah oo aad isleedahay dadkaas oo aad raadinayso ayaa u badan ayaad dooranaysaa. halkaas ayaa marka qaybtaas waxa waaye waa placementiga ama meesha aad rabto in xayeysiintaada ay ka soo muuqato. So marka ganacsiga hadda u rabto inuu ilaa 20 channel oo gooni ah waa ka soo muujinaysaa. marka stepkeena saddexaad waxa waaye waxaa abuureynaa videoga aan xayeysiinta soo gelinayno. marka waa inaan leenahay sidaa kuu sheegay waa inaan leenahay YouTube channel. Okay, marka waxaa soo gelin kartaa ilaa 5 video macnaha si oo u sameeyo performance asigoo marka different orientation ama qaab kala duwan oo xayeysiinta u isticmaalayo. marka had tusaale waxaan soo qaadanaynaa this one. marka halkan waxaan ku baastagareynaa videoga oo rabno inuu la xayeysiiyo oo kasoo muuqdo janaladaas hore aan kasoo doorano. waa ka videoga waa gelinay marka waxaan kusoo muuqan doonaa as stream. qaabkan ayuu noogu soo muuqanaya xayeysiinteena markii aan soo dooran halkaas muuqaal. qaabkaas Skype qaabka u soo muuqanaya hadda u jeedid. waxaan sameeynaa marka waxaan u baahan yahay call to action ama meeshii uu aadayo. marka tusaale website-kooda ayaa soo qaadanay afnanhomes.com oo kale. waxaa kaloo nooga baahan yahay call to action. call to action waxa waaye waa markii qofkan muuqaalkan uu daawado meesha uu ku dhufan lahaa si uu kula soo xiriiro oo u noqdo conversions oo sameeyo ama oo maaragtay macluumaad oo kaaga helo. So marka hadba wixii ku habboon call to action ka ayaa dooranaysaa. annaga tusaale waxaa leenahay book now oo kale lacala ama learn more oo kale lacala hadda learn more. Okay, marka headline ayaad ku qoraysaa oo aad isleedahay wax ay dadka soo jiidan karaan. Okay, marka waxaan diyaarinay headline oo iyo long headline iyo description oo tusaale ahaan aan halkan kusoo diyaarinay. So marka si uu noqdo wax qurux badan adigana waxaa sameynaysaa waqti juhdi ayaa gelinaysaa. So marka hadda xayeysiinteena qaabka soo muuqanaysa waa kana muuqaalka xayeysiinteena waa ka dabaqaas description keena iyo maaragtay headline halkaas ayuu ka soo muuqanayaa. learn more qofka markuu taabtana directly wuxuu naginayaa website-ka aan halkan soo gelinay. Okay, marka qaabkaas ayaa xayeysiintaada kusoo diyaarisay. waxaad dooratay YouTube-ka aad rabtay ama janalada sida goonida inay uga soo muuqato ayaa dooratay. Okay, waan sii soconaynaa marka habkaas ayaan usoo diyaarin quruxda badan haddii aan sii dhamaystirna muuqaalkeena. Okay, tusaale aad groupkeena koowaad waxaa u baxsanay test 1. halkan marka waxaa hadda noo dooran bannerka ama xayeysiinteena qaabkay usoo muuqanayso automatic generation for your channel banner. marka bannerkan halkan kasoo muuqanaya asigaa noo dooray automatic oo kusoo muuqday. haddii marka aad haysato image halkan ayaa soo gelin kartaa upload image. markaa dhahno imageka bannerka halkan kasoo muuqanayo automatic waa hadda dabaqa asigaasi automatic inoogu dooray. marka image gooniya haddii aad usoo diyaarsato oo design leh oo maaragtay waxyaabo badan oo macluumaad ah halkaas ayaad soo gelin kartaa. soo marka halkaa waa ad groupkeena koowaad ayaa hadda inoo abuuran. kuwo badan ayaad kasii abuuri kartaa oo waxaa sameyn kartaa 2 ilaa 3 4 kala duwan oo hal campaign hoos imaanayo. waxay isticmaalayaan same budget laakiin waxay kala naqanayaan different ad groups. marka halkan waxaa waaye waa bid keena waxaan dhahaynaa tusaale 0.1 oo kale. qofki waxa ugu badan oo bid strategigeena meesha ugu sareyso waa inay noqotaa waa 0.1 ayaan dooranay. marka qaabkaas ayuu sameynaa dadka daawan doona videoga impressionka ilaa loo gaari doono maaragtay iyo waxa aan dooranay oo ah 0.1 ilaa intaas ayay noqon doontaa. Okay, marka hadda intaas kaliya waa wax weyn maahan. dhammaan waa soo dooratay. waxaa leedahay create campaign sidaas ayuu ku abuuran yahay. muuqaalkan aan halkan kasoo dooranayna wuxuu kasoo muuqan doonaa janaladaas aan halkaas kasoo dooranay.
marka hadda waxaan sameynay qaybta koowaad oo loo yaqaano stream ama in stream ad oo skypeable ah. qaybaha kaleeto non skypeable-ka iyo video short videoska iyo ciwaanada kaleetane cashiro kale ayaa ka sameyn doonaa, halkan ayaan soo gelinaynaa dhammaan. nagu xirnaa channelka waa channelka dhalinyarada, waxaan iskula wadaagnaa digital marketingka. jeceshahay inaad barato digital marketingka, halkan waxaad ka heli kartaa cashiro badan oo free ah oo aad ku baran karto digitalka. subscribe saar, la wadaag asxaabtaada. haddii aad ganacsi leedahay waxaan diyaar kula nahay inaan kula shaqeyno, hadday noqoto Google Ads inaan kuu sameyno oo professional ah, iyo inaan kuu sameyno Facebook ama social media marketing. marka waana la soo xiriiri kartaa contactkeena qaybta kore ee description-ka ayaa waxaad ka heli kartaa social media-heena LinkedIn, Instagram, Facebook iyo wixii la mid ah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.